Halkani waa deersame iyo anigoo Maxamed-Qaamuus. Maanta waxaan idiin wada buuga Naftaydaay Gacalo ee u turjumay Maxamed-Qaamuus. Naftaadasidaaadulahadashoayaa micnahadhabtaa hsamaynaya. Hordhaca turjumaaga. Buugta naflahadalka aad ayay inoogu yar yihiin Soomaali ahaan ama ma jiraanba ha ahaato kuwa aynu qornay ama kuwa aynu luuqado kale ka soo turjunayba ee dhab ahaana waa kaalin bannaan. Waayo buugta mawduucyadaas ka hadlaa waa kuwa ina bari kara sida habboon ee aynu nafteenna ula sheekaysan karno, sida aynu u dhiirigelin karno, sida aynu ugu tilmaami karno khaladaadkeeda innaga oo aan xaganaynin, iyo sida aynu xasilooni u abuuran lahayn nafteennana heshiis ula noqon lahayn. Buuggan deerme af Soomaali ahaana aanu u bixinay Naftaydaay Gacalo waa buug buuxin kara kaalintaas. Waa buug fudud, nafta ula hadlaya una hagaya sida ugu debecsan. Waa buug macaan oo aanad ku caajisaynin, aadna u kooban. Waa buug qofka raba akhriska inuu hadda bilaabo barbilow u noqon kara, qofka akhriska ka caajisayna ku soo celin kara, akhristaha sida joogtada wax u akhriyaana uu kaga nasan karo mawduucyada culus ee fikirka iyo rogrosista u baahan. Waana buug aad hal fadhi ku dhammayn karto. Si kasta oo uu buug fudud oo sahlan u yahay, haddana waa buug qofka si mug leh u dhuuxa uu kala bixi karo casharro nololeed, casharro aad u badan. Waa buug ku xasuusinaya mustaqbalka quruxda badan ee ku sugaya, haddana kugu boorinaya inaanad ka mashquulin nimcooyinka aad hadda haysato ee hortaada ka muuqda, iyo sida ay tahay inaad maalin kasta ugu noolaato sida ugu quruxda badan. Waa buug qalbiga taabanaya, la sheekaysanaya, dibna idiin wada fadhiisin doona naftaadii aad kala baadheen ee ay idin kala mashquuliyeen waayaha adduun iyo isgaadhsiintan casriga ahi. Ugu dambayn, waa buug aan ka helay naftayda la jeclaaday, sidaas darteed ayaan u soo turjumay oo aan idinkana idiin la jeclaaday. Ku raaxaysta akhriskiisa. Inta u dhaxaysa bilowga maalinteenna iyo dhammaadkeeda in badan ayaynu la hadalnaa nafteenna, laakiin sidee ayaynu ula hadalnaa? Ma ula dhaqannaa nafteenna si debecsanaan iyo wanaag ku jiro sida aynu ula dhaqanno saaxiibadeen, mise waxa aynu ula dhaqannaa si qalafsan oo canaan leh sida ay tahay cadow daran ama qof dambiile oo u sabab dhammaan xaaladaha aynu ku sugannahay? Halkan ayay ka timi fikradda buuggani si uu Naftaydaay Gacalo u noqdo buug u dhexeeya qofka iyo naftiisa. Gudihiisana waxaa ku duugan farriimo iyo hadallo badan oo uu qofku kula hadli karo naftiisa, islamarkaana uu gala sheekaysan karo mawduucyo kala duwan, isaga oo buuggani soo gudbinaya habab togan oo ay tahay in nafta loola hadlo si kor loogu qaado niyaddeeda iyo adkaysigeeda, islamarkaana qofku uu ugu baraarugo khaladaadka ay naftiisu ku dhacayso. Naftaydaay Gacalo waa buug akhristaha ku hagaya in uu naftiisa uga hadlo si debecsanaan iyo run ku dhisan, mana aha buug tudhaale oo nafta sax iyo khaladba la safan, ee sidoo kale waa mid ka caawinaya qofka sidii uu u noolaan lahaa nolol habboon oo macno leh. Naftaydaay Gacalo. Tallaabada ugu horraysa ee xaqiijinta riyooyinkagu waa in aad hurdada ka toostid. Naftaydaay Gacalo. Maanta waa maalin cusub. Waa maalin aanad hore u arkin, dibna u arki doonin, sidaas darteed jooji in aad naftaada ku maaweeliso beenaha aad mar kasta u sheegto. Imise maalmood oo hore ayaa dhayaal kugu dhaafay. Ka faa'iidayso maalintan cusub ee ashqaraarka leh, maalmaha kalena ka duwan. Ogsoonow maalinta quruxda badan gudaheeda in aad haysato fursado tiro badan oo aad noloshaada ugu jihayn kartid dhan kasta oo aad rabto. Waan ku jeclahay mar walba naftaydaay. Tagtayahay qaaliga ahi, waad ku mahadsan tahay casharrada aad isoo siisay oo dhan, mustaqbalyahow. Cajiibka ahi, si weyn ayaan adna diyaar kuugu ahay. Naftaydaay Gacalo. Waxa aynu isugu xidhiidhsannahay si cajiib oo aan cidina fahmaynin, islamarkaana fahmi doonin. Hal dhinac ayaynu nolosha uga soo wada jeednaa, ama in aynu sidaas ahaanno ayay ahayd, laakiin mar dhexe ayaan kaa tegey. Keligaa ayaan kaa tegey adiga oo isku dhex daadsan. Waxa aan kugu kalifay in aad dad shisheeye ka sugto oo ka raadsato jacayl, dhiirigelin iyo awood. Iyada oo ay ahayd in aan anigu ku garab istaago oo aan ku soo dhowaysto, ku ammaano, islamarkaana aan kugu qadariyo shakhsiyaddaada xiriirta iyo quruxda iyo milgaha aad nolosha ku soo biirinayso.
waan ka xumahay in aad igu hungowday, waan ka xumahay in aan ku xanuujiyey oo ku dayacay, waan ka xumahay in aanan ku xasuusin had iyo habeen sida aad u tahay qof qaali ah, ee aad u tahay qof wax kasta oo wanaagsan u qalma, una tahay qof geesi ah, naxariis badan, misena awood leh oo adkaysi badan. Iska kay cafi naftayday. Sida aynu nahay ayaynu qiimo ku leenahay, mustaqbalka soo socda waynu wada waajihi doonaa. Hadda waan ku helay, waan ishelay, marnaba gacantaada ma sii dayn doono. Markan waxa aan ku siin doonaa mudnaanta koowaad iyo kaalinta ugu sarraysa kaalmaha noloshayda. Waan ku ixtiraami doonaa, waan ku karaamayn doonaa oo ku qiimayn doonaa. Welibana ku jeclaan doonaa. Daacad baan ku ahay mar kasta naftayday. Naftayday gacalo, noqo qof debecsan, maxaa yeelay qof kasta waxa uu la tacaalayaa dagaalkiisa gaarka ah, kaas oo aanad adigu waxba kala socon. Naftayday gacalo. Wax kasta si shafsi ah ha u qaadan, hana moodin in adiga lagu dan leeyahay, cidna ha ka yeelin in ay ku liiddo oo hoos kuu dhigto. Inta badan waxyaabaha dhacaya adiga kuguma saabsana, ee waa kuwa ku tacalluqa qofka kale iyo cilladihiisa gudaha. Marka ay dadku dhaawac kuu geystaan, ka eeg arrinta dhankooda, booskoodana isdhig, iskana cafi, wax ka baro habdhaqannadooda khaldan, arrintana wax dhacay oo aan dib u noqosho lahayn ka soo qaad. Ogowna wax weliba in aanay ahayn sida ay u muuqdaan. Sidaada ayaad ku fiican tahay, cilladahaaga iyo imahaagu xitaa waa kuwo qurux badan. Aqbal waxyaabaha aanad kaga fiicnayn dadka kale, oo ku dheganow waxyaabaha aad kaga soocan tahay iyaga. Mar walba daacad baan ku ahaan doonaa naftayday. Ugu yaraan naftaada ula dhaqan sida wanaagsan ee aad dadka kale ula dhaqanto. Naftayday gacalo. Qalbigaaga si debecsan ula dhaqan, inta karaankaaga waad qabataa, xitaa marka aanad dadaal badan samaynin, naftaada cafi oo ha ku adadkaan. Ku jeclow naftaada xaalad kasta, waayo jacaylka oo qudha ayaa wax daweeya. Si kasta waan kugu jeclahay naftayday. Naftayday gacalo, si kasta oo ay xaaladuhu u adkaadaan, ha luminin dareenkaaga xasiloonida jacaylka iyo rajada ah. Naftayday gacalo. Mararka qaar Ilaahay inama siiyo wax aynu weydiisannay si uu inoogu beddelo wax kale oo ka sii wanaagsan. Marar badan ma garan karno sababta ducooyinkeenna qaar loo aqbalo kuwa kalena loo aqbali waayo. Waxaa qudha ee aan ogahay waa in Ilaahay uu ina jecel yahay, qadarkeennana uu inoo jeexay isagu. Marar badanna innaga oo aan xitaa fahamsanayn sida ay wax u dhici doonaan, waa in aynu ku kalsoonaannaa. Ku noolow noloshaada jacayl, oo ku kalsoonow Ilaahay si uu kuugu hanuuniyo waddada saxda. Wanaag badan ayaan kuu rajaynayaa naftayday. Mararka qaar waaba adiga uun cidda qudha ee noloshaada caqabadda ku ahi. Naftayday gacalo. Ogolow in aad isbiimayso, ogolow in aad halista u badheedho. Khaladaad waad samayn doontaa kolayba, oo taas la iskama ilaalin karo, laakiin khaladaadkaaga wax ka baro. Ogolow in aad noolaato, ogolow in aad xor noqoto, waxna ha ugu walaacin ama ha iskaga dayn in aad keliya ka baqayso guuldarrada ama in qof kuu hanweynaa uu kugu hungoobo. Qofka qudha ee ay tahay in aad farxad gelisaa waa isla naftaada, ee raadi farxaddaas oo hel hadafkaaga nololeed. Saaxiibo fiicana samayso inta aad ku jirto safarkaaga, saaxiibo aad wax wada qaybsataan. Jeclow qofka aad tahay, dadka oo dhanna jeclow. Hel qofka aad rabto in aad noqoto, kuna dheganow waxyaabaha kaa farxiya, casharrada nolosha aad la kulantana tixgelin weyn sii. Nasiib wanaagsan naftayday. Naftayday gacalo, waa in aad barataa sida naftaada loo jeclaado, ka hor inta aanad cid kale jeclaan. Naftayday gacalo. In lagu diidaa waa wax xanuun badan, sidaas darteed dhib ma leh in aad xanuun dareento, aniguna mar walba garabkaaga ayaan ahay. Xanuun kasta garabkaaga ayaan ahay naftayday. Waad u qalantaa naftayday, ee noqo mucjiso marla arag ah. Naftayday gacalo. Dadka qaar uma soo galaan noloshaada in ay ku jeclaadaan, ee waxa ay ugu soo biiraan in ay kugu danaystaan. Kuma arkaan qof, ee waxa ay ku arkaan fursad, sidaa darteed wax caawimo ah kuma fidiyaan si kasta oo aad adigu u caawisid. Jooji in aad dhinaca aad ka xigto gufayso dad iyagu dhinacoodii kugu banneeyey. Waan ogahay in aad moodayso garab istaaggooda in aad u baahan tahay, laakiin dhab ahaan uma baahnid garab istaaggooda.
yaan caawimo la'aantoodu kaa dhigin mid ka aamin baxda dadka oo dhan. Ka agdhowow dadka doonaya in ay ku caawiyaan si aad u horumariso noloshaada, kana fogow kuwa kuugu soo dhowaanaya si ay kuugu horumarsadaan noloshooda. Waan ku fahmayaa oo waxa aad odhan doontaa, yaa i caawin doona hadda. Dad badan ayaa diyaar u ah in ay ku garab istaagaan, sidaa darteed kuwa aan rabin in ay ku garab istaagaan yaanay kaa qarin kuwaas. Hadalkaygana aan addeeye, marna ha ka qoomayn in aad xidhiidhka u jartay qof isagu kalifay goynta xidhiidhkaas. Jacaylkayga ayaa kula jira ma kasta naftaydaay. Ha samaynin wax kasta oo aad hadhow ka qoomamayn doontid. Naftaydaay Gacalo. Xorriyaddu waa mid ka mid ah nimcooyinka quruxda badan ee uu Ilaahay inagu manaystay, si kasta oo aynu isu diidsiinana nolosha waxa aynu nahay kuwa xor ah. Hor ayaynu u nahay waxa aynu ka fekerayno, hor ayaynu u nahay waxa aynu dareemayno, hor ayaynu u nahay waxa aynu odhanayno, sidoo kalena hor ayaynu u nahay waxa aynu samaynayno. Waa run in mararka qaar ay nolosha inagu khasbi karto duruufo adag, sidaas oo ay tahayna hor ayaynu u nahay sida aynu uga falcelinayno duruufahaas. Hadda firin hornimadaada ee ku farax, qadari oo maamuus, maalin kastana adeegso oo ka faa'iidayso. Xasuusnow hor in aad u tahay abuuridda qaab nololeedka aad weligaaba ku hamin jirtay, doorashadana adiga ayaa mar kasta leh, sidaas darteed ka buuxi noloshaada debecsanaan, wanaag, madadaalo, farxad, xasilooni, dhoolla-caddayn, jacayl iyo wax kasta oo wanaagsan. Waxa aan rajaynayaa in aad xornimo ku noolaato, si waayo aragnimo leh aad wax u doorato, si deeqsinimo lehna aad wanaagyada ula qaybsatid dadka kale, wanaagyada ay noloshu kuugu deeqday. Waxa aan rajaynayaa in aad xorriyaddaada uga faa'iidaysato in aad kaga dhigto noloshaada gaarka ah mid adiga iyo dunida kaleba idin anfacda. Xaq ayaad u leedahay xornimada naftaydaay. Waan ogahay culayskan oo dhan in uu yahay mid ku meel gaadh ah. Qalbigaygiyow gacale. Raaligelin ha ka bixin in aad dareemayso dareen gaar ah ama aad dareemayso dareemo badan, xaq ayaad u leedahay in aad dareento wax kasta oo aad rabto. Waan ku jeclahay mar walba. Dhib ma leh in aad keligaa noqotid xilliyada qaar, waayo kelinimadu marar badan waxa ay ku siisaa awood iyo geesinimo. Naftaydaay Gacalo. Isheliddu ma aha in aad si dhab ah isu raadisid oo aad isa soo heshid. Waayo ma tihid alaab yar oo meel lagu kariyey kadibna dib loo raadiyey, qof ambadayna ma tihid. Naftaada dhabta ahi waxa ay ku sugan tahay meeshaas ay ku kulmeen qiyamka bulshada iyo dabaradoodu, aragtida dadka kale iyo ra'yigoodu, iyo natiijooyinka aan xaqiiqada ku fadhiyin ee aad qudhaada ka aamintay markii aad yarayd, iminkana aad u aragto shakhsiyaddaada dhabta ah. Isheliddu dhab ahaan waa dib ugu noqoshada naftaada, waa ilowga wixii aad soo baratay oo dhan, iyo kodkodista gudahaaga, iyo dib u xasuusashada qofkii aad ahayd ka hor inta aan dunidu kuu talin. Nasiib wanaagsan naftaydaay. Habsidu maaha in aanad doonaynin in aad wax samayso, habsidu waa in aad ogaato halistu in ay badan tahay, haddana aad og tahay waxa aad samaynaysaa in ayu qalmaan u badheedhidda halistaas. Naftaydaay Gacalo. Haddii aad arrin u samaynayso si ay dadku kuula dhacaan ama kuugu bogaan marka aad samayso, kadib uma samaynaysid sabab sax ah. Waxyaabaha aad samaynaysid adiga oo ka cabsanaya in dadka qaar kugu jeesjeesaan marka aad samaynayso, waa waxa jaangooya himilada dhabtaa. Sidaas darteed, samee waxyaabaha ku cabsigeliya, si kasta oo aad uga baqaysid in dadku kula yaabaan, waayo in lagula yaabo wax dhab ah maaha. Dadka aad ka baqayso in ay kula yaabaanna, iyagii ayaa baqaya, oo in ay tallaabo hore u qaadaan ka cabsanaya. In aad ka agajiiddo samaynta waxyaabaha ku cabsigelinaya waa wax aad dhab ahaan ka qoomamayn doonto. Jacaylkayga ayaa kula jira naftaydaay. Dib u qiimeen naftaada mar kasta, sannad kasta, bil kasta iyo xitaa maalin kasta, si aad u hubiso in aad weli doonayso waxyaabihii aad aaminsanayd in aad u baahan tahay iyo inaad hore u soconaysaba. Naftaydaay Gacalo. Maalin walba xasuusnow. Weli maad gaadhin meeshii aad u socotay, ee hubkaaga ha dhigin, ha isdhigan, ku dabaaldeg guulahaaga yaryar, horena u soco, waayo noloshu waa socdaal. Garabkaaga ayaan ahay safarka oo dhan.
In aad farxad abuurato ka dhigo ujeeddo maalinle ah oo sii mudnaan joogta ah. Naftaydaay gacalo. Weli waddada hortaydu way dheer tahay, laakiin waxa aan go'aansaday in aanan marnaba joojin socodka. Mar walba nolosha dhibaatooyin ayaa jiri doona, sidoo kalena mar walba laba albaab oo aad kala dooranayso ayaa jiri doona. In aad noolaato nolol aan farxad lahayn adiga oo tirinaya mashaakilkaaga, ama in aad noolaato nolol farxaddii ku dheehan tahay adiga oo tirinaya nimcooyinkaaga. Albaabkaas aad dooranayso ayaa go'aamin doona in aad farxad la duuli doonto iyo in aad xabsi murugo ah geli doonto. Jacaylkayga adigaa iska leh, naftaydaay. Naftaydaay gacalo, maanta in aad daciif tahay, micnaheedu maaha maalin kasta in aad daciif ahaanayso. Naftaydaay gacalo. Xirfadda ugu muhiimsani waa in aad hesho waddada saxda ah kadib marka ay soo oodmaan rajooyinka oo dhammi, maadaama ay fududahay in aad ku lunto mugdiga iyo in aad noqoto mid niyad jabsan marka ay kuu rumoobi waayaan riyooyinkaagu, ama marka ay riyooyinkagu ku hirgalaan laakiin aanay ku siinin waxyaabihii aad ka rajaynaysay. Awoodda adiga oo isdhiibi gaadhay aad gogoshaada dusheeda ka ooyiso, adiga oo aan garanaynin wixii aad samayn lahayn, haddana aad kor u taagayso gacmahaaga adiga oo Ilaahay weydiisanaya in uu kuu ifiyo waddada hortaada. Dhab ahaan waa xirfad weyn oo aanay dadku si weyn u qadarin. Mararka qaar sida qudha ee aad hore ugu dhaqaaqi kartaa waa inaad filato guuldarrada, inaad aqbasho in aad tahay binaadan oo aanad garanaynin inta badan waxyaabaha dhacaya, kadibna aad si weyn u ilmaysid ilaa aad dareentid fiicnaan ama aad heshid waddo cusub. Mar walba waan ku jeclaanayaa naftaydaay. Iska sii daa, wax ka qurux badan ayaa booskiisii kuu buuxin doona. Naftaydaay gacalo, fiiro gaar ah. Xasuusnow, marka aad xal u weydo mushkilad gaar ah, sida ay u badan tahay, ma aha mushkilad la xallin karo, ee waa xaqiiqo ay tahay in aad sideeda ku aqbasho. Jahwareer kasta garabkaaga ayaan ahay, naftaydaay. Naftaydaay gacalo, ha waayin. Dun wanaagsanaantaada si kasta oo ay duruufuhu kuu adkaadaan. Qofka aan noqon doono mustaqbalkow. Wax kasta oo kugu soo dhacay waxa ay kugu hoggaamiyeen in aad timaaddo halkan. Waxba ha beddelin, waayo wax kasta waxa ay u dhaceen sidii loogu talagalay. Arrimaha oo dhan waa ay kala caddaadeen, wax walbaana waxa ay noqdeen kuwa muuqda. Wax qoran ayay ahayd in dadkaas oo dhan ay soo maraan noloshaada, dhammaan guulihii iyo guuldarrooyinkii ku soo marayna sidoo kale, xaaladihii jacaylka iyo wakhtiyadii qalbijabkuna waxa ay ahaayeen wax ay ahayd in aad soo dhadhamiso. Wax mudan ayay ahaayeen in la soo tijaabiyo, ha ka qoomamayn. Weligaa wax aad ahayd ahaana doontaa qofka aad hadda tahay, taas ayaana wax kasta ka muhiimsan. Jacaylkayga iyo ixtiraamkayga ayaa kula jira, naftaydaay. Naftaydaay gacalo, ma jiro wax ka qurux badan oo ka iftiin badan qalbiga wanaagsan. Naftaydaay gacalo. Waad ka qurux badan tahay sida aad isu malaynayso. Xoog ayaad ugu waalan tahay lebiska, quruxda iyo dhammaan waxyaabaha ay dumarku xiiseeyaan, laakiin waxa aad u oggolaataa waxyaabahaasi in ay maskaxdaada u qabsadaan si kabadbadis ah oo ay ku wareeriyaan. Hal maalin iska tirtir dhammaan makeubka iyo waxyaabaha aad wejigaaga marisay, waxa aad arkaysaa in quruxdaadu ay ka soo burqanayso gudahaaga. Run ahaan, ma noqon doontid gabadha ugu quruxda badan, mar walba waxaa jiri doonta cid kaa qurux badan, waayo quruxdu waa arrin qof iyo qiimayntii ah. Dadkuna marnaba iskuma waafaqaan waxa ay quruxdu tahay, laakiin dadka oo dhammi waxa ay jecel yihiin ruuxda quruxda badan. Adiguna qaalidaydiyey, waxa aad leedahay ruux qurux badan, ee ha ka oggolaan mugdiga dunidan aynu ku noolnahay in uu ku hadheeyo noloshaadana uu ka dhigo mid qadhaadh. Daacad baan ku ahay, naftaydaay. Naftaydaay gacalo. Haddii aad raadinayso qofkii noloshaada beddeli lahaa, eeg muraayadda hortaada. Naftaydaay gacalo. Arrinta oo dhan waxa ay ka bilaabantaa hal go'aan ah in aad joojiso waxaas, go'aan ah in aad hore u socoto, go'aan ah in aad noqoto qof geesi ah si kasta oo aad u cabsanayso, go'aan ah in aad qubto oo ka gudubto wixii hore oo dhan. Intaas kadib ayay tallaabada labaad noqonaysaa in aad go'aankaas ku taagnaato. Labadaas arrina, in aad go'aan gaadhid iyo in aad ku taagnaatid, cidina kaama furan karto, waa hawl adiga kuu taala. Jacaylkayga ayaad xaq u heshay, naftaydaay.
Ku farax in aad nooshahay oo neefsanayso, in aad maalin kale soo toosto adiga oo nool waa wax weyn, yaanay kula sahlanaanin. Naftaydaay gacalo. Waa wax fiican in aad noqoto qof xidig ah oo ay dadku la wada ashkaraaraan, laakiin waxaa marar badan ka xasilooni badan in aanad ahayn qof dayn lagu leeyahay, xoogaa lacag ahi ay bangiga kugu jirto, oo aad ku nooshahay xaalad ammaan ah, oo aanad ka warwaraynin dhaqaale xumo iyo in aad wax weydo. Mararka qaar waxaa muhiim ah keliya in aad caafimaad qabto, dharkaaga aad maydhato, cunto hagaagsan aad cunto, si wanaagsan aad u qubaysato, meesha aad degan tahayna aad iska nadiifiso, halkii aad hami weyn oo nolosha ah xaqiijin lahayn. Daacad baan ku ahay naftaydaay. Naftaydaay gacalo. Dadka badankoodu ma bogsadaan maadaama ay xasuusihii hore maskaxdooda ku soo celcelinayaan ee ka gudub arrinta ku dhibaysa. Naftaydaay gacalo. Khasab maaha qof kasta oo aad la kulanto noloshu in uu garabkaaga joogo inta ka dhiman noloshaada. Dad ayaa ka tegi doona, adiguna sidaas si la mid ah dad ayaad ka tegi doontaa. Dad badan ayaad ku hungoobi doontaa, waxaa kudha ee aad samayn kartaana waa in aad ka faa'iidaysato casharradii ay ku bareen, sidaa darteed u mahad celi dadka joogay ee aan kaa dheeraan, sidoo kalena buuxi booska kuwa ka baxay noloshaada. Ta ugu muhiimsanina waa in aad si laabxaadnaan ah uga gudubto dadka iyo waxyaabaha aanay qornayn in ay noloshaada ku sii jiraan, oo aad u aqbasho waaqica sida uu yahay. Wax badan oo wanaagsan ayaan kuu rajaynayaa naftaydaay. Mar kasta oo uu safarka fikta sare sii adkaado, ha ilaawin in aad naftaada ku faanto. Naftaydaay gacalo. Mar kasta ha ka warwarin qofka daacadda ah ku ah iyo cidda aad ku kalsoonaan karto. Ha dhawaato ama ha dheeraato ee dadku way muujin doonaan wejigooda dhabta ah. Marka aad aragto wax arrintaas ku caddaynayana, markiiba aqoonso oo dadka ku kala qiime. Ku kalsoonow dareenka gudaha ee kuu sheegaya shakhsiyadda dhabta ah ee dadka iyo dareenka ay ku dareensiinayaan. Marka horeba waad garanaysaa cidda ay tahay in aad noloshaada boos ka siiso iyo cidda ay tahay in aad bannaanka uga saarto. Nasiib wanaagsan naftaydaay. La inama siinin nolol xun iyo mid wanaagsan toona. Ilaahay waxa uu ina siiyey nolol uun, innaga ayay inoo taallaa in aynu ka dhiganno nolol qurux badan ama mid xun. Naftaydaay gacalo. Waxa aynu joognaa sannadka 2040, waa taariikh aan islahaa weligaa ku arki maysid meel aan ka ahayn filimada khiyaaliga ah ee ka warrama tegista mustaqbalka. Hadda waxa aan jiraa 70 sano, ama aan iska dhaho waxa aynu jirnaa 70 sano. Hambalyo labadeennaba maadaama aynu soo gaadhnay dadan. Qoyskeennu waa mid qurux badan, carruurtuna sidoo kale. Waan xasuusanahay naftayday markii aad aasaastay qoyskan sida aad u ahayd mid taag daran, sida ugu warwaraysay biilasha iyo xaaladda dhaqaale, in aad noqoto nin biilka reerkiisa ka adkaada, iyo xaaladdii jahawareerka ahayd ee ku soo martay markii aad weyday shaqadaadii. Haddii aanad haysan lahayn adkaysiga xaaskaaga, jacaylkeeda iyo garab istaaggeeda, kuma aanad guulaysateen in aad xaaladahaas ka gudubto, sidaa darteed ula dhaqan si wanaagsan mar walba. Arrinta la yaabka lihina waa in wax badani iskood u hagaageen markii aad joojisay in aad wax walba hagaajiso, taas beddelkeedana aad xoogga saartay in aad dadka kuu dhow la wadaagto arrimahaga, islamarkaasna aad samayso waxyaabo ku anfacaya oo faa'iido kuu leh. Marar badan waxaa qurux badan in aad waxyaabo badan sidooda iskaga dayso. Haddii aan in uun talo ku siin lahaana waxa aan odhan lahaa: 10 mar fikir, 100 marna wax rogrog. Warwarka aad ka qabto in aad khaladaad samaysidna jooji. Hana ku fikirin, ma anaa ku dhaca in aan waxaas sameeyo. La kaalay ku dhac iyo dhiiranaan oo isbeddel macno leh horseed. Hayaan qurux badan naftaydaay. Su'aal naf yahay. Miyaad u xiistay qofkaas si dhab ah, mise hadda ayuunbaad kelinimo dareemaysaa? Naftaydaay gacalo. Waad og tahay in qofkii aad jeclayd uu ku khiyaamay, haddana waxa aad naftaada ku qancinaysaa in wax kasta ay ahaayeen khalad fahan. Haddana caddayn kale ayaa hortaada timi, gacaliyahaagii sidaas kuu galay oo wata kuna faanaya jacaylkiisa cusub, isaga oo moogan baaxadda xanuunka uu kuu geystay. Ha ku dhicin khaladka ah in aad qof xidhiidh ula samayso si aad isugu ilowsiiso kii hore, si aanad naftaada ugu geysan dhaawac ka weyn intii hore. Dhibna ma laha in aad in muddo ah keligaa ahaato. In aad keligaa tahay waxba u dhimi mayso dumarnimadaada.
ha degdegin bogso oo wakhtigaaga qaado, ugana faa'iidayso wakhtigaas aad keliga tahay in aad naftaada ku daryeesho kuna barato. Laga yaabaa odhaahda tidhaahda wakhtiga ayaa wax kasta daweeya in ay u muuqato mid aan macno badan lahayn, laakiin waxa macquul ah dadkii hadalkaas yidhi cidda ay doonaanba ha ahaadaane in ay saxnaayeen oo qodob ku taagnaayeen oo damqashada xanuunku waa ay yaraataa mar kasta oo wakhtigu socdo, xooggaa nasiib iyo adkaysi ah kadibna waxaa macquul ah in aad wada bogsato. Laga yaabaa in dhaawacyada qaar ay kaaga tagaan boogo, haddana waynu u adkaysan karnaa boogahaas oo waynu baran karnaa sida loola noolaado innaga oo aan damqanaynin. Waan ogahay in aanay arrin fudud ahayn, waan ogahay i rumayso, sidoo kalena iga rumayso in arrimahaasi ay hagaagaan mar kasta oo wakhti la siiyo. Bogsiimo wanaagsan naftaydaay. Way fiican tahay in aad xawaare sare ku socotid, laakiin sidoo kale waxaa iyana muhiim ah in aad garanayso xilliga aad cagta dhulka u dhigayso ee aad yara nasanayso. Naftaydaay gacalo. Qaado xooggaa wakhti ah oo aad ku nasato kuna soo kabato, xasab maaha in aad sidaas oo dhan mashquul u ahaato oo aad isu kadeeddo xilli kasta. Hal tallaabo dib u qaad oo naftaada daryeel, wakhtiyadaas aad naftaada gelisayna, dhadhan iyo micno gaar ah ayay u samayn doonaan marka dambe safarkaaga guusha. Isu dheelitir dadaalkaaga iyo nasashadaada noloshaadana ku raaxayso. Wax xuni kuma haleelaan naftaydaay. Mar kasta way ku habboon tahay in aad naftaada jeclato in ka badan intii hore. Naftaydaay gacalo. Ma u fiirsatay sida aad isu beddeshay beryahan dambe? Aniga ayaa u fiirsaday, dhanka wanaagsan ayaad isu beddeshay. Iminka si kal furan ayaad uga hadashaa waxyaabaha maskaxdaada ka guuxaya. Caqabadahana waxa aad u waajahdaa si ka kalsooni badan sidii hore. Iminka waxa aad awooddaa in aad u seexato si qoto dheer adiga oo aan werweraynin iyo in aad madadaalato oo wakhtigaaga qaadato adiga oo aan cabsanaynin iyo in aad fasax u baxdo adiga oo keligaa ah, wakhtigaagana aad ku raaxaysato iyo kelinimadaadaba. Waxa aad kaga qayb qaadataa dadaalkaaga, wakhtigaaga iyo lacagta yar ee aad haysato in aad ku caawiso dadka kale ee adiga kaa sii liita. Si kasta oo aad u dareemayso in kaydkaaga lacageed uu isdhimayo lacag dheeraad ahna aad u baahan tahay, haddana ruuxdaadu sidii hore way ka farxad iyo iftiin badan tahay. Waa isbeddel qurux badan, aniguna waan ku faraxsanahay in aad noqotay qof cusub. Bannaanka u soo saar kalsoonidaas iyo quruxdaas gudahaaga ku duugan, isbeddelladaas joogtada ahna samee inta aad ku guda jirto hayaankaagaas noleed. Ahow mid awood badan, hana joojin jacaylka iyo bixintiisa, hana joojin in aad dadka kale danayso oo daryeesho. Inta aan wax kale la gaadhinna, ugu horrayn run kula noolow naftaada. Nolol qurux badan naftaydaay. Naftaydaay gacalo, waa in aad isku kalsoonaataa marka aanay jirin cid kale oo kugu kalsooni, taas ayaa macnaha dhabta ah samaynaysa ugu dambaynta. Naftaydaay gacalo. Miisaanka waxaa lagu qeexaa culayska cayiman ee ku sugan gudaha walax cayiman, mana aha wax xidhiidh la leh shakhsiyaddaada, awooddaada iyo qiimahaaga qofnimo toona. Waa run, waa muhiim in aad noolaato nolol caafimaad qab leh, waana muhiim in aad naftaada daryeesho, laakiin daryeelidda naftaada waxaa soo hoos galaysa daryeelidda badqabkaaga maskaxeed. Iska indhatirka badqabkaaga maskaxeed iyo badqabkaaga jidheedba waxa ay kugu sababi karaan mashaakil hor leh, waxaana fudud in aad isku qanciso in aad buuran tahay ama aad dhuuban tahay, taasina ay kugu kalifto in aad si aan habboonayn ula dhaqanto jidhkaaga. Jidhkaaga waxaa ku kaydsan dhammaan afkaartaada, dareennadaada iyo sifooyinkaaga. Isagu jidhkaagu haddii aanu badqabinna ahaan maysid qofka aad tahay. Sidaas darteed, haddii aad rabto in aad wax ka beddesho, ku soco oo sida ugu habboon wax uga beddel, laakiin waa in aad niyadda ku haysaa in aanad arrintaa u samaynaynin in aad cid kale isku jeclaysiiso ama cid kale kuula dhacdo ama aad u farxad geliso qof gaar ah. Qofka qudha ee jidhkaagu khuseeyaa waa adiga, cidina xaq uma laha in ay ku sheegto in jidhkaagu uu jalafsan yahay ama in uu kala daadsan yahay toona. Haddii ay kaa waayaan sida ay rabaan, waa mid iyaga u taala. Jacaylkayga ayaan kuugu deeqayaa mar kasta naftaydaay. Xakamaynta naftaadu waxa ay ka bilaabantaa xakamaynta afkaartaada. Haddii aanad xakamayn karin waxa aad ka fikirayso, ma xakamayn kartid waxa aad samaynayso. Naftaydaay gacalo.
Waxa aan ogaaday in dejinta hadafyadu ay u wanaagsan tahay qorshaynta horumarkaaga halka caadooyinka maalinlaha ahi yihiin waddada lagu xaqiijinayo hadafyadaas. Waa suurtagal in hadafyadu ay kuu sheegaan jihadii aad aadi lahayn ama si ku meel gaadh ah in hore kuugu riixaan, haddana ugu dambaynta nidaam aadeed toosan oo si wacan loo diyaariyey ayaa guusha dhabta ah xaqiijiya. Nidaam aad raacdo in uu kuu degsanaado waa muhiim, nidaamkaas in aad ku toosnaatana waa waxa farqiga iyo macnaha samaynaya. Maamuus kasta waad u qalantaa naftaydaay. Marka aad dareento in aanad intaas ka badan sii wadi karaynin dadaalka, dib u xasuuso sababtii aad markii horaba u bilowday hawshan. Naftaydaay Gacalo. Samirku waa saaxiibkaaga ugu fiican. Waxa ugu badan ee ay tahay in aad mar walba xasuusnaato waa in samirku uu yahay saaxiibkaaga ugu fiican. Samir yeelo marka aad noloshaada ka saarayso dadka, fikradaha iyo habdhaqannada aan habboonayn. Naftaada u debecsanow oo u tudh marka aad ka fogaanayso waxyaabaha aad la soo qabsatay noloshaada oo dhan. Naftaadana si togan u dhiirigeli si aad u xaqiijiso yool kasta oo ka mid ah yoolashaada nololeed. Waan kuu tudhayaa mar kasta naftaydaay. Ku raaxayso waxyaabaha yaryar nolosha maalin maalmaha ka mid ah ayaad dib soo fiirin doontaa, kadibna aad ogaan doontaa in ay ahaayeen waxyaabaha waaweyn. Naftaydaay Gacalo. Ogow in qofka ugu saboolsan dadka dhaqaale ahaan uu marar badan noqon karo midka ugu hodansan marka ay arrintu joogto jacaylka, dhoolla caddaynta, farxadda, xasiloonida, gobonnimada iyo u dhowaanshaha Ilaahay. Sidaas darteed, mar kasta xasuusnow waxaa muhiimka ah nolosha iyo waxaa lagama maarmaanka ah. Ku raaxayso islamarkaana ka faa'iidayso dhammaan walxaha wanaagsan ee aad haysato, laakiin xasuusnow mar kasta in farxadda iyo jacaylka dhabta ahi ay ka yimaadaan gudaha. Samayso farxaddaas, jacaylkaagana dadka la wadaag, qalbigaagana ka buuxi wanaagga iyo jacaylka Rabbi. Mar walba qalbiga ka noolow, markaas ayaad garan doontaa sida loo noolaado nolol farxad leh. Waan ku jeclahay mar walba naftaydaay. Naftaydaay Gacalo. Cadhadu waa astaan kastaana waxa ay mudan tahay in loo fiirsado. U fiirso naftaydaay. Dad badan ayaa aaminsan in xakamaynta cadhadu ay tahay sidii aad u abudin lahayn cadhadaada, laakiin in aanad cadhoonin gebi ahaanba ma aha arrin caafimaadka wanaagsan, waayo cadhadu waa arrin dabiici ah. Si kasta oo aad isugu celisana dibadda ayay u soo baxaysaa. Ujeeddada dhabta ah ee xakamaynta cadhadu ma aha in aad cadhadaada abudiso, ee waa in aad fahanto farriinta ka dambaysa dareenkaas iyo in aad u soo bandhigto hab habboon iyada oo aan arrintu farahaaga ka baxaynin. Marka aad sidaas samaysid, ma dareemi doontid uun dareen wanaagsan ee xitaa waxa aad helaysaa baahiyahaaga iyo waxyaabaha aad rabto, waxaanad awood u yeelanaysaa maaraynta khilaafyadaada iyo xoojinta xidhiidhadaada. Barashada xakamaynta cadhadu waa wax adag oo u baahan dadaal badan, laakiin mar kasta oo aad ku tababarato waxa ay kuu noqonaysaa wax fudud, faa'iidooyin badanna waad ka dheefi doontaa. Barashada xakamaynta cadhadaadu iyo in aad u cabbirto habka ugu qumani waxa ay kaa caawinaysaa in aad dhisto nolosha xidhiidho wanaagsan iyo in aad xaqiijiso hadafyadaada oo aad ku noolaato nolol qanaaco leh oo aad raalli ku tahay. Waan kugu kalsoonahay naftayday, waanan ku aaminsanahay. 5 waxyaabood oo ay tahay in aad maalin walba xasuusnaato naftayday. Wixii tegey way tageen. Aragtiyaha aynu dadka ka haysannaa mar kasta xaqiiqo maaha. Qof kasta safarkiisa nololeed waa mid gaar ah oo dadka kale ka duwan. Wakhtiga ayaa daweeya wax kasta. Farxaddu waa doorasho. Naftayday Gacalo. Dadka oo dhan ayay soo maraan maalmaha adagi. Muhiimaddu waa in aynaan ku soo celcelin khaladaadkii hore, khaladaadkii maalmaheenna adkeeyey. Naftayday Gacalo. Naftaydii hooyada noqotayey. Waan ogahay in hooyanimadu ay tahay marxalad amankaag leh, maadaama ay hooyanimada weheliyaan dareemo badani oo keliya dareemi maysid jacayl iyo farxad uun, ee sidoo kale waxa aad dareemaysaa dareenno adag sida werwer, isku buuq iyo daal. Ha werwerin, hooyooyinka oo dhan ayaa sidaas dareema. Hawl fiican ayaad qabanaysaa. Waan ogahay in aad dareemayso sidii aad tahay hooyada adduunka ugu xun, laakiin ii rumayso, carruurtaadu mar walba way ku jeclaan doonaan ee jacaylkaaga ugu deeq. Waxaa qudha ee ay mar walba xasuusan doonaan waa taas.
Noqo hooyada carruurteedu ay fajilaan marka ay dhunkanayso iyaga oo iskuulka u socda, ama u sii qor farriimo yaryar oo shandada ugu rid si ay u akhristaan wakhtiga nusu saacaha. Xitaa waxyaabahaas yaryar ayaa jacaylkaaga tusaya. Laga yaabaa in aanay waxyaabahaas tixgelin marka ay yaryar yihiin, laakiin marka ay xasuustooda dib u soo celiyaan iyaga oo waaweyn, ma doorbidi doonaan in waxyaabahaasi ay u dhici lahaayeen si sidaas ka duwan, macno weyn ayayna u samayn doonaan. Xasuusnow in hooyanimadu ay mararka qaar u muuqan karto shaqo, laakiin xaqiiqadu waa in tahay awood iyo dheeraad lagu siiyey. Maalmo wanaagsan iyo maalmo xunba way ku soo mari doonaan, maadaama hooyanimadu labadaba ay wadato, laakiin ka dhig inta karaankaaga ah sida ugu wanaagsan. Jeclo carruurtaada jacayl bilaa shuruud ah, naftaadana ha ilaawin inta aad hawshaas ku guda jirto. Xasuuso qurux badanna samee. Hooyo cajiib ah ayaad tahay naftaydaay. Cidna kama hoosaysid kamana liidatid ee maanka ku hay. Naftaydaay gacalo. Waxaad leedahay xirfado iyo ribooyin qurux badan oo ku habboon shakhsiyaddaada, xoogna waad ugu hamuun qabtaa in aad si adag u shaqayso oo aad barato xirfado cusub. Sidaas darteed isku kalsoonow. Waxaa jiri kara wakhtiyo aad isku hungowday oo aad gashay khaladaad, laakiin maxaa diiday in aad is-cafiso? Maxaa diiday in aad kalsoonidaada dib ugu dhisto isla sida aad uga caawiso dadka kale in ay dib u dhisaan kalsoonidooda? Miyaanad adiguba u qalmin intaas? Ma garan kartaa sifada ay wadaagaan dhammaan dadka guulaystay ee cagta la helay, dabada aad adna ku socoto? Waa joogtaynta. Isma dhiibaan marna. Adna ma tihid qof isdhiiba, weligaana maad noqon qof isdhiiba. Sidaa darteed hore u soco, tallaabadana hore u qaad, waad gaadhi doontaa ujeeddadaada. Jacaylkayga ayaa kula jira naftaydaay. Haddii aad rabto wakhti, xorriyad iyo tamar dheeraad ah, bilow adeegsiga ereyga maya. Naftaydaay gacalo. Ixtiraam tamartaada oo isu tudh. Marka ay khasab noqoto in aad howlaha oo dhan joojiso oo aad dib u soo kabato, samee sidaas. Dunidu waa goob waalan, abaalna kuguma laha ee naftaada ha cadibin. Markastana khasab maaha in aad goobjoog ahaato. Dhibi kuma jirto in aad dadka ka dhex baxdo muddo si aad naftaada ula xidhiidho, wakhtina ula qaadato. Daryeel badan ayaad mudan tahay naftaydaay. Marka ay ku soo maraan afkaar tabani, kuguma filna in aad keliya u dulqaadato afkaartaas, ee waxaa iyana muhiim ah in aad ku beddeshid afkaar togan oo raynrayn leh. Naftaydaay gacalo. Waxaa jirta odhaah qadiimi ah oo tidhaahda waxa aad tahay waxa aad cuntid, iyada oo laga yaabo in ay sax tahay, haddana waxa ay ila tahay in ay ka sii habboon tahay waxa aad tahay waxa aad ku hadashid, waayo ereyadu waxa ay leeyihiin awood cajiib ah. Dhowr erey oo fudud ayaana kor u qaadi kara oo shidaal u noqon kara kartida qofka ama hoos u dhigi kara waxqabadkiisa. Ereyada aynu ku hadalno saamayn toos ah ayay ku leeyihiin nolosheenna, waxaanan aaminsanahay haddii aynu aadaysanno adeegsiga hadallo wanaagsan oo aynu kula hadalno dadka kale iyo nafteennaba, in aynu ku noolaan doono nolol qurux badan. Dhanka kale, haddii aynu nolosheenna adeegsanno ereyo taban, dadka kalena aynu ku jeesjeesno waxyaabo xunna aynu ka sheegno iyaga oo jooga ama maqanba, ama aynu nafteenna kula hadalno ereyo ay ka mid yihiin waxba kuma fiicni ama noloshaydu way kala daadsan tahay, sidee ayaannu u rajayn karnaa in aynu ku noolaanno nolol togan oo wadata raynrayn iyo xasilooni? Afkaarta iyo ereyada tabani waxa ay abuuraan nolol xun. Wanaag badan ayaan kuu rajaynayaa naftaydaay. Naftaydaay gacalo. Guushu ma aha wax geed ka goon ah, la hubo. Guuldarraduna ma aha wax aan laga soo kaban karin. Geesinimada hore loogu sii soconayo ayaase ugu muhiimsan. Naftaydaay gacalo. Haddii ay inuun micno kuu samaynayso, ogow in aan marnaba wakhti kaa tegin si aad u noqoto qofka aad rabto in aad noqoto. Habeenkaama tegin. Ma jiro wakhti cayiman. Jooji dadaalka marka aad doonto, oo waxa aad awooddaa in aad isbeddesho ama in aad sidaada ahaatoba. Ma jirto heerar sandulle ah oo arrintan u degsani. Sidaas darteed waad awooddaa in aad qodobkan uga faa'iidaysato sida aad rabto, ama waxa aan rajaynayaa in aad ka faa'iidaysatid. Waxa aan rajaynayaa in aad aragto waxyaabo aad la ashqaraarto. Waxa aan rajaynayaa in aad dareento dareenno aanad hore u dareemin. Sidoo kale, waxa aan rajaynayaa in aad la kulanto dad u fekeraya si ka duwan sida aad u fekerto. Waxa aan rajaynayaa in aad noolaatid nolol aad ku qanacsan tahay.
haddii aad is aragto in aanad ku qanacsanayna, waxa aan rajaynayaa in aad yeelatid awoodda aad wax kasta dib ugu bilaabi lahayd mar labaad. Guulo badan ayaan kuu rajaynayaa naftaydaay. Naftaydaay gacalo, noloshu gebigeedaba waa in aad saamayn wanaagsan yeelato, gaar ahaan naftaada ku yeelato. Fiiro gaar ah. Jeclow naftaada adiga oo daalan. Jeclow naftaada adiga oo daciif ah. Jeclow naftaada adiga oo khalkhalsan. Jeclow naftaada adiga oo kala daadsan. Jeclow naftaada inta aad dib ugu istaagayso agahaaga. Barasho ayaan ku jiraa si aan u noqdo qofka ay ii sheegayso ruuxdaydu in uu aniga yahay. Naftaydaay gacalo. Jidkaaga daryeel mar kasta, uudi jimicsi u samee oo ula dhaqan sida ugu habboon, sidaas oo ay tahayna ruuxdaadu ha noqoto halka aad ka dhaqaaqdo, ruuxdaada qurxiso. Ruuxdaas quruxda badan ee wanaagsan ee gudahaaga ku jirta, iyadaa ah waxa ugu muhiimsan. Ruuxdaas ashqaraarka leh ee xooggani waa midda ku siinaysa nolol. Ruuxdaas faraxsan ee naxariista badani waa waxaa ku siinaya 2 baal oo aad samada ugu duushid, waana midda kuu furaysa janno aadku noolaatid. Si walba waan kugu oggolahay naftaydaay. Ugu noolow noloshan sida aad rabto, hana ka cabsan inaad si buuxda u noolaato. Naftaydaay gacalo. Waad ka caqli badan tahay sida aad ismoodayso, waana iga dhab. Maxay micno leedahay in waxbarashadu aanay kuugu fududayn sida ay ugu fududahay dadka kale? Tani kaama dhigayso qof ka garaad yar mid ka fadhiya dhinacaaga fasalka, sidaas darteed, marka dambe ee aad keligaa fikirayso is-xasuusi intaan. Waxa uu yidhi Albert Einstein, qof kastaaba waa mid caqli badan haddiise aad kalluun ku qiimayso awooddiisa iyo kartidiisa in uu fuuli karo geed iyo in kale, waxa uu ku dhammaysanayaa noloshiisa oo dhan isaga oo isu arka doqon aan waxba ku fiicnayn. Qof walbaa waa mid caqli badan, adiga ayayna kuu taallaa qaabkii aad taas u soo bandhigi lahayd. Maxaad ku wanaagsan tahay? Waa maxay shayga aad dadka kale kaga fiican tahay? Hel majaalka aad ku wanaagsan tahay, dunidu iyada ayaa kuu niikinaysa, sidoo kalena xoogaa dadaal ah la kaalay marka aad xiisadda joogto, ileen sababaad u joogtaa meesha. Jacaylkayga iyo ixtiraamkayga oo wada socda iga guddoon. Mararka qaar fogaantu ma aha daciifnimo ee laga yaabaa in ay tahay awood, waayo uma fogaano si ay dadka kale u gartaan qiimaheenna, waxa aynu u fogaanaa in aynu ugu dambayn garanay qiimaheenna. Naftaydaay gacalo. Ka fogow dadka ku niyad jebiya. Ka fogow murannada aan weligood xalismaynin. Ka dheerow ka farxinta dadka aan weligood ku qiimaynaynin. Mar kasta oo aad ka fogaato waxyaabaha sumaynaya ruuxdaada, waxa aad noqonaysaa qof awood badan. Waan ku jeclahay. Naftaydaay gacalo. Waa caadi in mararka qaar lagu waayo oo aad dadka ka dhex baxdo. Naftaydaay gacalo. Booqashada baraha bulshada, eegista fariimaha kuu soo dhacay, daawashada sawirrada Instagram-ka, iyo rogrogista waxyaabaha degdega ah ee Twitter-ka la soo dhigo, iyo wixii la mid ah, waa qayb ka mid ah nolol maalmeedkeenna. Laakiin haddii aanad xakamaynin wakhtiga aad ku qaadanayso meelahaas, waxa aad is arkaysaa wakhtigii oo socday iyo adiga oo aan waxba qabsan. Sidaa darteed, xeerar u deji isticmaalkaaga, dawanka, alarmiga, ku safagarayso wakhtiga aad joojinaysid, iska xidh abkaas oo wax kale qabo, ama soo gal khadka keliya wakhtiyada aad dhammayso howlahaaga si aad uga dhigato abaalmarin iyo nasasho. Wakhti tayo leh ayaan kuu rajaynayaa naftaydaay. Shalay mid caqli badan ayaan ahaa maadaama aan rabay in aan dunida beddelo, maanta waxa aan ahay mid waayo arag ah, sidaas ayaan u rabaa in aan naftayda beddelo. 10 su'aalood oo ay tahay in nafta la weydiiyo. 1. Waa maxay waxyaabaha noloshayda ku jira ee aan aniga iga turjumaynin? 2. Muxuu qalbigaygu ii sheegayaa ee aan iska indhatirayaa? 3. Markee ayaanan naftayda runta u sheegin? Waayo. 4. Waddada saxda ah ma ku suganahay? 5. Maxaan maanta samayn karaa si aan berri u noolaado nolol fiican? 6. Ma ahay qof ay dadka kale agtiisa farxad ku dareemaan? 7. Wax kasta ma si shakhsi ah ayaan u qaataa, ma cuqdad baan qabaa? 8. Waa maxay waxa ugu weyn ee aan naftayda ku jeclahay? 9. Ma u jeclahay naftayda si la mid ah sida aan rabo in dadka kale ay ii jeclaadaan? 10. Maxaa iga farxiya?
Cabsida iyo kalsooni darradu waxa ay dilaan riyooyin ka badan kuwa ay disho guuldarradu. Naftaydaay Gacalo. Doorashooyinkaaga nololeed waxa ay micno samaynayaan marka aad ku xidho doonistaada iyo riyooyinkaaga. Doorashooyinka ugu fiican ee ugu dhiirigelinta badanina waa kuwa la jaanqaadaya hadafkaaga, naftaada iyo qiyamka aad aaminsan tahay. Sidaas darteed, marka aad arrin ku dhaqaaqayso, isweydii sababta aad waxaan u rabto, haddii kale waxa aad is arkaysaa adiga oo si fudud isu dhiibay. Daacad baan ku ahay naftaydaay. Kalsoonidu albaabo ayay kuu furtaa, isla weyniduna waa ay kaa xidhaa. Naftaydaay Gacalo. Farqi weyn ayaa u dhexeeya qofka isku kalsoon ee naftiisa qadariya iyo midka isla weyn. Dadka naftooda sida saxda u qadariyaa waxa ay u fekeraan sidan: waan qurux badanahay, laakiin way jirtaa cid iga qurux badani, halka dadka isla weyni ay dhahaan ama u fekeraan qaabkan: waan ka qurux badanahay qof kasta oo aan aqaano. Qofka isku kalsooni naftiisa waa la heshiis, iyadoo ay jirto in uu naftiisa ogol yahay, haddana wuu garanayaa waxa uu ku liito iyo waxa uu ku fiican yahayba, wuuna og yahay in ay jiraan waxyaabo badan oo ay tahay in uu ka barto dadka kale, waxaanad arkaysaa dadkaasi in ay isdhuldhig badan yihiin marka ay la dhaqmayaan dadka kale. Halka isla weynidu ay ka soo maaxato qadarin nafeed aan caafimaad qabin, kuwa isla weyni waxa ay la halgamayaan xasilooni darro gudahooda ah. Isla weynidu waa in aad mar walba ku dadaasho in aad dadka ka sare marto. Isla weynidu waa in aad ku dadaasho in aad mar walba hesho danaynta iyo hadal haynta dadka kale. Sidoo kalena dadka isla weyni uma dulqaadan karaan dhaliisha togan, markastana waxa ay naftooda barbar dhigaan dadka kale. Sidaas darteed, naftayday noqo mid si quman isu qadarisa, mid isku kalsoon haddana isdhuldhig badan. Kalsooni badan ayaad u qalantaa naftayday. Toddobada cajaa'ib ee dunidu waa: 1. In aad wax aragto. 2. In aad wax maqasho. 3. In aad wax taabato. 4. In aad wax dhadhamiso. 5. In aad wax dareento. 6. In aad dhoola caddayso. 7. Iyo in aad wax jeclaato. Naftaydaay Gacalo. In aad buug iibsato oo meel iska dhigto iyo in aad iibsato oo wakhti aad ku afrido u hesho waa laba arrimood oo gebi ahaanba kala duwan. Mar walba iyo meel walba waad heli kartaa wakhti, adiga oo tareen saaran, adiga oo bas saaran, adiga oo doon fuushan iyo adiga oo meel cid ku sugayaba. Mar kasta oo aad wax badan afrido waa mar kasta oo aad wax badan barato tijaabooyinka dadka kalena aad casharro kala baxdo, oo waxa aad baran kartaa waxyaabo 10 sano kugu qaadan lahaa saacado gudahood, adiga oo akhrinaya buug qoraaga ku qaatay 10 sano oo waayo aragnimo ah si uu xogtaas isugu dubarido. Marlayba qorayaashu waa ay ku qabteen hawsha intii adkayd, ama wax ka baro buugga oo afri ama iskaga tag adiga oo aan kala furin. Nasiib wanaagsan naftayday. Nolol qurux badan haddii aad doonayso naftayday, caadooyin wanaagsan samayso. Naftaydaay Gacalo. Waad og tahay in ay jiraan dad ku danaynaya oo ku jecel, maxaad ugu warwaraysaa in aad culays ku noqoto? Waan hubaa in aad leedahay saaxiibo diyaar u ah in ay ku caawiyaan mar kasta, saaxiibo aad marar badan u hagarbaxday, iyaguna ku faraxsan in ay ku garab istaagaan oo ku caawiyaan markooda. Maxaad uga cabsanaysaa in aad caawimo weydiisato? Waad og tahay in dadka qaar ay wax kasta u samayn karaan adiga dartaa, laakiin sidoo kale waxa aad og tahay in iyagana ay haystaan duruuftooda gaarka ahi oo ay lagama maarmaan tahay in aanad culays la soo doonan adna, laakiin ma aha in aad sidaas samayso. Wax badan ayaad samaysay, wax badan ayaad dadka kale u qabatay, maxaa diiday in adigana lagu caawiyo markaaga? Sida aan hore kuugu sheegay, waxaa jira dad in ay ku caawiyaan ha joogtee xitaa ku farxi doona in ay kuugu debacsanaadaan oo kuugu hagarbaxaan isla sidii aad u samaysay markoodii. U oggolow in ay ku jeclaadaan, sidaas ayay doonayaan, dhab ahaanna way ku jecel yihiin. Garab istaag kasta waad u qalantaa naftayday. Aqbal oo istareex ku dareen in aanad ogeyn waxa soo socda mustaqbalka, laakiin sidoo kale ogsoonow in wax kasta oo yimaada aad maarayn karto. Naftaydaay Gacalo. Fadlan jidhkaaga ha odhan waa daciif, waayo wakhti dheer ayuu soo halgamayay, sidaas ayuuna ka yahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu xooggan ee aad weligaa aragtay. Wax badan ayuu u soo dulqaatay, in badanna wuu soo adkaystay, hana ilaawin in soo kabashadu ay tahay hawl si gaabis ah u dhacda.
fadlan ha dareemin qoomamo iyo niyad xumo maadaama aanad ahayn saaxiib, gabadh iyo shaqaale dhammaystiran oo bilaa'iin ah. Wax badan oo aan suurtagal ahayn ayaad samaysay si aad noloshaada u sii wadato, haddana waad guuldaraysatay. Waxaanad gashay dagaal aan waxba la iskula hadhin, laakiin dibdhacaagu waa diyaargarow iyo soo laba kaclayn uun. Maalin maalmaha ka mid ah ayaanad guulaysan doontaa. Markaas ayaad fiirin doontaa dhaawacyada jidhkaaga adiga oo ku qaydhinaya, waan guulaystay. Ha isnicin naftayday, jidhkaagana ha nicin. Lugahaagu waxa ay ku sideen xilliyadii ugu adkaa noloshaada, gacmahaaguna waa kuwa xooggan sidoo kale, sidaas oo ay tahayna waa kuwa debecsan oo loo adeegsan karo laabgelinta cidda aad jeceshahay. Marka aad dib uga soo kabato guuldarradan, waxa aad dareemi doontaa in ay tahay guushii ugu weynayd ee aad weligaa dhadhamiso. Waxaanan kuu ballanqaadayaa haddii aad iska dariso oo iskiimayso mar labaad in jidhkaagu uu mar kale iftiimi doono, xagtimaha dushaada ku yaallaana ay caddayn u noqon doonaan in aad guulaysatay. Sidaas darteed, mustaqbalka u hanweynow oo mar kasta mahadnaq. Marka aad keligaa lugaynaysid ha eegin cagahaaga hoostooda ee eeg gudahaaga si aad u ogaatid awooddaada. Naftaydaay gacalo. Haddii aanay cidi hore kuugu sheegin, aan kuu sheego hadda, waan ku jeclahay. Waan jeclahay sida aad u dhoola caddayso, dhoola caddayn daacad ah. Waan jeclahay qaabka aad u daryeesho dadka aad jeceshahay, ee aad wakhtiga ugu hesho si kasta oo aad mashquul u tahay. Waan jeclahay qaabka aad u aaminto in wax wanaagsani ay dhici doonaan xitaa iyada oo u muuqata in aanay suurtagal ahayn. Waan jeclahay qaabka aad u aaminsan tahay dadka iyo in mar kasta gudahooda wanaag uu ku duugan yahay. Waan jeclahay qaabka aad u dhegaysato dadka marka ay kaaga sheekaynayaan qisooyinkooda. Waan jeclahay sida aanad dadka u xukminin markiiba ee aad dhankooda wax uga eegto. Waan jeclahay qaabka aad u eegto dadka indhahooda ee aad u ogaatid in ay wax badan ku qarinayaan qalbiyadooda, ugu qarinayaan caqabadahooda iyo xanuunadooda. Waan jeclahay qaabka aad u aaminsan tahay nolosha iyo in ay jiraan waxyaabo badan oo weli u baahan in la daafaydo. Waan jeclahay sida aad u jeceshahay waxbarashada ee aad u xiisayso in aad mar walba wax cusub baratid, ka baratid nolosha iyo dadkaba. Sidaada ayaan kugu jeclahay nafyahay, waayo sida aad og tahayba mid dadka kale ka soocan ayaa tahay. Xushmad weyn ayaan kuu hayaa naftaydaay. Dhammaadka maalin kasta xasuusi naftaada in aad qabatay intii aad awoodaysay, taasina ay wax weyn tahay. Fiiro gaar ah naftayday. Ku gebagabee maalintaadii fikir togan mar walba, waayo si kasta oo xaaladuhu u adag yihiin, beri waxaa jirta fursad wax uun lagu hagaajin karo. Waan ku jeclahay si walba iyo xaalad walba. Halkaa waxaa ku soo gabagaboobay buuggii Naftaydaay Gacalo. Buuggan xuquuqda turjumaada waxaa iska leh Maxamed-Qaamuus. Waad ku mahadsan tahay maadaama ilaa dhammaadka nala soo gaartay.